aan ku bilaabay faahfaahin kala duwan ayaa laga helayaa weerar ku bilowday ismidaamin oo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyadoo dhinaca kalena taliska booliiska Puntland ay sheegeen inay ogaadeen cidii ka dambeysay weerarkii xalay lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland oo kamid ah magaalooyinka ugu nabdoon gobolada Soomaaliya siiba maamulka Puntland ayaa xalay salaadii cisha kadib waxa ka dhacay weerar ismidaamin ah weerarkaas oo fuliyay qof naftiis haliga ahaa weerarka ayaa la sheegay inuu ka dhacay nawaaxiga barxadda magaalada Garowe ka soo horjeedka saldhigga booliiska Garowe waxaana wararku ay tilmaamayaan in qof wadada marayay uu isku qarxiyay kolonyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland iyo sidoo kale taliye ku-xigeenkii hore ee gobolka Nugaal ee maamulkaasi dhaawac halis ayaa gudoomiyaha ka soo gaaray weerarkaasi waxaana dabadeeto 2 saacad waxa dabadeetana 45 daqiiqo kadib uu geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland gudoomiyaha magaalada Garowe iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka Puntland oo goobta tagay ayaa waxay ka warbixinayaan mashaqadan sidee u dhacday iyo khasaaraha guud ee jira caawa todobadii fiidnimo waxa qof naftahaliga ay isku qarxiyay baawur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday waxa halka ku dhintay oo kaliya qoftii naftahaligaha ahaa waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto cidii ka dambeysay assalaamu alaykum warahmatullaah الحمد لله رب العالمين سيدا ما يركو إذن شاقيبا مانتا وحا كدعي رنتي مقالة قروة شيل آدو فولحون وقيستي قف نفتيسا هالليقايي وإسكو قرحيي قدوميه قبل كالنقال إيو ركالي أو كأقدوا دختركي بانو هادير كنمي dadka kale ee dhaawacyo soo gaaran aad ba u fiicnaayeen iyaguna xogaa yar oo shooga mooyaan iyo xogaa xagtimo ah mooyaan aad iyo aad ba u fiicnaayeen waxaan rajaynaynaa kulligoodba inay dhaawaca ka kacaan cidii falka geysatayna ciidamada amniga iyo cid ay qosayso sida ugu dhaqsaha badan inay u soo qabtaan baan rajaynaynaa waxaanu ugu baaqaynaa dadka reer Garowe iyo dadka reer Puntland inay si fiican ula shaqeeyaan ciidamada amniga ee ku hawl jira ku guda jira inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay ninkan isku qarxiyay maanta baabuurka iyo madaxda waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland ay indhaha ku hayn doonaan falalka argagixisada ee ka socda iyo dadka looga shakaysan yahayba in ay u soo gacan gelin doonaan wixii information ah ciidamada amniga wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhinaca kale taliska booliiska Puntland ayaa iyana waxay ka warbixiyeen qaabka uu dhacay weerarkan iyo sidoo kale xogta ay hayaan taliyaha ciidamada booliiska Puntland Muxyidiin Axmed Muuse oo warbaahinta kula hadlayay goobta uu qaraxan ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in talisku ay si hayeen xogta ninkan isla markaana ay ku daba jireen wuxuu sidoo kale sheegay inay dhawaan soo bandhigi doonaan cidda ka dambeysay halka uu ninkan ka yimid iyo sidoo kale xog dhameystiran oo qaraxan ku aadana waxa isku qarxiyay barxadda gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil meesha joogtay nin naftihaliga ah isagana waa dhintay waxaan marka dadweynuhu inuu istajiyo waa hadii la xidmo dambiilayaashana waa la soo qabanayaa baaristiina waa socotaa shaqo badan baa la qabtay awalna arrimaha wax badan baa lagala socday oo meelo badan oo horay wax looga ogaabaa jiray marka haddii ilaahay idmana dambiilayaasha waa la soo qabanaya gaarigu waa taagnaa ismidaamiyaha u yimi ka bacdina wuxuu gaarigii ayuu isa soo dhinac taagay waana isqarxiyay goortuu gaariga sidaa ula soo istaagay waana isqarxiyay sidaasuu bay u dhacday arrintu si kastaba ha ahaatee weerarkan lagu dilay Allah u raxmade ee gudoomiyihii gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Cabdisalaan Xasan Xirsi waxa dhabarka u ritay isla markaana mas'uuliyadooda sheegtay xogaga Al-Shabaab war ay ku baahiyeen baraha bulshada ay ku leeyihiin ayaa waxay ku sheegteen inay ka dambeeyeen isla markaana uu fuliyay dagaalyahana ka tirsan iyaga
isla wararka qarxaas ayaana ku jirnaa dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay cambaareysay weerarkii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Guujir. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay inuu qadka taleefanka kula xiriiray dhigiisa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu kaga tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Guujir oo isagoo ku dhintay qarax ismidaamina oo ka dhacay bartamaha magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in madaxweynaha Puntland dadka deegaanka maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu kaga tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay Cabdisalaan Xasan Xirsi Guujir oo isagoo ahaa gudoomiyihii gobolka Nugaal ka oo ku geeriyooday qarax ismidaamina oo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. dhinaca kale sidaasi lamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isna kaga tacsiyay shacabka iyo maamulka Puntland geerida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Guujir oo isagu ku dhintay qarax ismidaamina oo ka dhacay magaalada Garowe fiidnimadii xalayto ahayd. si walbaba ha ahaatee deegaanada maamulka Puntland waayadii la soo dhaafay waxaa ku soo badanayay dilalka qorsheysan iyo sidoo kale qaraxyada ka dhaca deegaanadaasi waxaana haatan muuqata in al-shabaab deegaanada maamulka Puntland ay ka geystaan dilal qorsheysan iyo sidoo kale weeraro. iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Wajaale laga taabageliyay barnaamijka iskaashiga shacbiga iyo dowladda u dhaxeeya ayaa barnaamijkaasi waxa uu sahlay dhismaha wadooyin si wada jir looga hirgeliyay qaar kamid ah xaafadaha magaalada Wajaale. xaafadaha bariga magaalada Wajaale ayaa iyagoo kaashanaya maamulka dowladda hoose degmada Wajaale kana faa'iideysanaya barnaamijka iskaashiga waxay sameeyeen wada dhexmaraysa xaafadaha bariga magaalada waxaana wadadaasi loogu magac daray Weysha. maamulka dowladda hoose degmada Wajaale oo fidinaya wadadan ayaa sidoo kale qaaday hawlgal lagu banaynayo sagarooyinka iyo goobaha la ootay ee soo galay wadada isla marhaantana ku jiray goobihii uu maray tombalinka magaalada loo yagleelay. wadadan laga sameeyay xaafadaha bariga ayaa fududeyn doonta isu socodka bulshada iyo gaadiidka iyadoo sidoo kale lagaga raysan doono dhibaatadii bulshada ka haysatay xaafadan xilli roobaadka. haddaba telefishinka Sahan ayaa qaar kamid ah bulshada Wajaale wax ka weydiiyay bal siday u arkaan qorshahan iskaashiga shacbiga iyo dowladda ee lagu hirgelinayo wadooyinka waxayna yiraahdeen wadada hadarka saan waxa iska kaashanaya dowladda hoose iyo dadweynaha xaafadan degan waqti hadarka saan wadada la mari kari jirin maanta waqti hadarka saan inay laami u soo egtahay insha Allah waxaan gaari doonaa inaan laami dhigano oo roogi dhignaan gaari doonaa insha Allah. markii hore halkan lama mari kari jirin maantana halka saan wadadii baa laga wadaa dadka waxaan ugu digaynaa inay wadooyinka ilaashadaan ay waxay kala ka bixinayaan ay ka bixiyaan markaa dowladda hoose aad iyo aad ma hambaliyana wadadan waxa iska kaashanaya dadweynaha Tog Wajaale ee xagga xaafada bariga agagaarka Weysha iyo dowladda hoose markaa horumarka ay dowladda hoose gaadhay iyo wadooyinka ay balaadhinayso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wadooyinka hal ilaashado horumarka wadankana laga qayb galo. waxaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay shacabka Tog Wajaale iskaashiga lagu dhisay wadooyinka. waxaan halkan ka cadaynayaa inaan wadadani annagoo ah xaafadahan dhinaca bariga Xasan Cawke aan wadadan iska kaashanay dowladda hoose oo magaranaysa dhaqaalaha aan ururinay annagu odayaal ahaan iyo xaafadahan magaranaysa dowladda hoose naga caawisay kala bixinta iyo rushaynta iyo magaranaysa ay garaacidda waxa Ilaahay mahadiya in magaranaysa ilaahay na gaarsiiyay nimcadaasi oo dadka kale ee reer Wajaale aan ugu baaqaya inay ay arrinka ka faa'iideystaan oo wadooyinka ay magaranaysa wadooyinka faa'iideystaan inay sidaa yeelaan oo ay magaranaysa nagu daydaan oo ay bulshadu iska kaashato iyo dowladdu. wadadan waan aad ugu baahnayn xilliyada roobka iyo xilliyada roobka aan gaadhu soo gali kari jirin hatta dad qof doonaysa dhakhtarka diiso ay aad u adkayd in gaadhu uu soo galo taasoo iska kaashadeen dowladda hoose iyo shacabka gaar ahaan xaafadan aad baan soo dhaweynaynaa idinkana waa idin magaaleenaa waxaan kula jecelahay inay ku daydaan xaafadaha kale sida ay magaalada wanaagsan ee xaafadan bariga ay samaysay iyo qof kasta wax qabad sameynaya ay dowladda hoose taageeri doonto Wajaale. aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda hoose iyo shacabka xaafadan degan oo iska kaashaday hirgelinta wadadan. waxaan soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya bulshada afkeega iskaashiga horumarineed ee ka socda magaala ganacsiyada degmada Tog Wajaale
xagga horumarinta jidadka iskaashiga ay samaynayaan maamulka dawladda hoose iyo shacabka ku nool magaalo ganacsiyada degmada Togwa Jaale aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa bulshadana waxaan leeyahay haddii gacmaha la isqabsan waayo waxa ma hirgalaan waa in sidaa gacmaha la isku qabsaday iyo horumarintu ku shaqaynaysaa waxna inoogu hagaagayaan bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inay sidaa ula dadaalaan maamulka dawladda hoose waxaan leeyahay inta ka soo horjeedana maamulka jaanis baa loo sameeyaa madaxdaada waa in jaanis loo sameeyo lana la shaqeeyo